بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، walaalihii maktabadda tasjiilaat ibn xambal alislaamiya waxay idii soo bandhigayaan tarjama loo tarjumay lisheekh maxamed naasir الdiin alalbani raximah allahu tacaala assunan almahjuura fi ramadaan, sunnooyinka ay dadka ka tegeen bisha ramadaan. waxaan idin rajaynaynaa ka faa'iidaysi wanaagsan. haddana waxaad dhegaysan doontaan muxaadara. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhahay qur'aanka kariimka: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية كما لا يخفى على الحاضرين aayaddan kariimadda ah sida inooga qarsoonayn dadka qaarkooda meesha fadhiya ama kulligiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sheegay ummaddan, wuxuu ku soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam, wuxuu ku farla yeelay aayaddan inay soomaan siduu ugu farla yeelay ummadihii naga horreeyey suu soonka faral ugu ahaa. arrintanna waa arrin ay wada yaqaanaan muslimiinta oo dhan, kuwaasoo weliba akhrinaya aayaddan kariimadda oo weliba macnaheeda si cad u fahmaya. walaakiin arrinta aan rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan arrintan ka duwan dadka ku baraarugsanna aaday u yaryihiin, khaasatan dadka caamadooda markii la fiiriyo. arrintaasoo ah waxa weeyaan aayaddaneeto dhammaadkeeda waxaa mudan tihiin inay allah ka cabsataan. ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba addoommadiisa mu'miniinta ah goorta uu faro amri ama uu u sharciyeeyo arrin, inuu u bayaaniyo addoommadiisa goortuu amrayo xikmadda. wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo koobaa amrigaas inuu amrigooda u sheego, laakiin xikmaddiina una u sheegin. la-anno xikmadda guud uu ilaahay addoommadiisa uu ka damacsan yahay waxaa weeyaan inuu imtixaano. markaas ka bacdi waxaa soo baxaysa dadka adeeci doona ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dadka khilaafi doona amriga oo weliba khilaafaya ilaahay tabaaraka wa tacaala. walaakiin aayaddaneeto wuxuu ilaahay u sheegay addoommadiisa wax aynan aada iyo aada u arag. arrintaasoo ah qur-aanka aadna uguma arkaan. waxa weeyaan cilada soonka iyo xikmadda soonka laga damacsan yahay waxa weeyaan siduu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku yidhahda aayadda lacalakum tattaquun, waxaad mudantihiin allah inaad ka cabsataan. idan dadka in la faro inay soomaan, xikmadda ku jirta maaha un keliya inay ka dheeraadaan wax walboo macaan iyo wax walboo u bannaan inay sameeyaan sida waxyaalaha tayibaadka oo kale, inkastoo tahay arrimahaas in laga joogsado wax kasta oo tayiba oo macaan oo loo xalaaleeyey ay tahay arrimaha waajibka qof walba oo sooman waajibku ah. walaakiin kuma koobno soonka ay soomayaan intaas hadda aan sheegnay. walaakiin ilaahay aayadda wuxuu ku gabagabeeyey hadalkiisa uu dhahay ilaahay tabaaraka wa tacaala لعلكم تتقون. waxaad mudantihiin allah inaad ka cabsataan. haddaba sababta loo sharciyeeyey soonka ninka mu'minka inuu ziyaadsado daaco allah subxaanahu wa tacaala bisha soonka in ka badan siduu ahaa mararkii ka horreysay bisha soonka. waxaana xaqiiqa nabigeena sala allahu alayhi wasalam si cada wuxuu noogu sheegay oo weliba wuxuu noogu bayaaniyey oo noogu caddeeyey si dhammaystiran xikmaddaneeto ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga timid markuu dhahay nabigeena sala allahu alayhi wasalam sida bukhaariga ku soo aroortay. wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam qofkaana ka tegin qowla zuur, hadalka zuurka ah iyo weliba zuurka in lagu dhaqmo, ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba kuma falaayo inuu iska dhaafo qofkaas cuntadiisa iyo cabitaankiisa. idan waxaa weeyaan macnaha xadiidka hadda aada maqasheen, ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan laha inuu ku farad yeelo addoommadiisa inay ka joogsadaan cuntada, taasoo ah weliba siyaamka xilliga la bilaabayo in laga joogsado cunto iyo cabitaan, weliba waxyaalo kooban oo dadka ay wada yaqaanaan oo weliba ay dadkaasayta sooman ka joogsadaan. weliba waxaa la rabaa inay ku daraan ka joogsiga waxyaalahaas hadda aan sheegnay ay ka joogsanayaan. wuxuu ilaahay ka xaaraantimeeyey dembiyada oo dhan, dembiyadaasoo ka mid ah hadalka zuurka iyo camalka zuurka. marka rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo ta'kiidiyey aayadda
waxaad mudan tihiin allah inaad ka cabsataan oo macnaheeda ay tahay inaad ilaahay u dhowaataan caza wajalla waa weliba ziyaada lagu ziyaadiyey in laga joogsado cunto iyo cabitaan inaad ka joogsataan sidoo kale wixii idinka xaaraantimeeyey sida xanta sida dadka madaxa la isku gelinayo iyo markhaatiga beenta ah oo dadka lagu furaayo iyo beenta la sheegayo iyo wixii intaas la mida oo ka mida akhlaaqda xunxun sidaa kulligeen garanayno arrintaas awgeed waa inay gartaan muslimiinta kulligood waxyaalaha dadka soonkooda burin kara ma aha keliya waxyaalaha aan wada garanayno oo la dareemi karo oo la taaban karo oo si guud weliba loo yaqaano cuntada iyo cabitaanka iyo jimaaca kaas ma aha keliya soonka waxa la yidhaahdo saas awgeed culimmada qaarkood waxay kala soocayaan oo kala durkinayaan oo kala farriqayaan waxyaalaha dadka soonka ka burin kara laba nooc u qaybiyeen arrintan weeyaan marka arrinta kelimadayda aan u dan leeyahay saacaddan hadda aan ku jirno oo barakaysan insha allah iyagoo weliba dadka wacdiya khudboonka jeediya ee caado ka dhigteen goorta ay dadka xasuusinayaan soonka inay ku baraarujiyaan inay cuntada joojiyaan cabitaanka joojiyaan marka waxay ka hadlayaan waxyaalaha soonka kaa burin kara oo muuqda sida cuntada cabitaanka iyo jimaaca keliya kuwa xooga ka hor nii sheegayna oo kale marka waxaa waajib dushooda ku ah inay baraarujiyaan dadka muslimiinta caamadooda qaybta labaad oo ah qaybta soonka burin karta laanno dadka o dhan waxay u fahmeen badankood in laga soomo qaybta koobaad keliya in laga soomo marka waxaa jira haddaba qayb kale oo soonkaada kaa burin kara waxaan u bixin karnaa insha allahu tacaala markaan qaybta koobaad aan u bixinay waxyaalo soonka kaa burinayo maadi ah oo la dareemi karo la taaban karo iyo waxyaalo soonka kaa burinaya macnawi ah aan la dareemi karin ama aan la taaban karin waad maqasheen xadiiskii nabiga sala allahu alayhi wasallam xoogaa ka hor markaan ka hadlayay xadiiskaasoo ahaa من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه saas awgeed waxaa waajib dushiisa ku ah qof walba oo soomaya waxa weeyaan qof ka soomaya waxyaalaha maadiga ah keliya mise waa qof waxa weeyaan kulansaday soonka qaybtiisa labaad sidoo kale in laga soomo waxyaalaha macnawiga ah yacni waxaan ka wadaa ninkan akhlaaqdiisa ma fiicantaha goortuu sooman yahay oo ma wanaajiye akhlaaqdiisa yacni goorta uu soonka soo galay ramadaan almubaarak uu soo galay qofkanayta suluugtiisa iyo aadaabtiisa iyo dhaqankiisa wax ma ka bedelay haddaba hadduu saas noqday wuxuu marka uu ku guulaystay qowlka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yiri aayaddii kariimadda waxaad mudan tihiin inaa allah ka cabsataan ama qofkii ku ekeysiiya soonkiisaoo dhanba inuu ka joogsado cunto cunid iyo soonka aan u bixinay soonka maadiga ah oo weliba uu ku socdo akhlaaqdiisa xun iyo dhaqankiisa xun kuwaasoo weliba caado u ahayd ramadaan ka hor inuu sameeyo dhaqamadaas xun iyo dembiyadaas kaas ma aha markaa aayadda kay u dan leedahay soonkana la faray iyo xikmadda bishaan mubaarakada ah nalagu farad yeelay inaan sonno taasoo weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu baraarujiyey goortuu yidhi lacallakum waxaad mudan tihiin tattaquuna rabbigiin inaad ka cabsataan haddaba waxaan ku baraarujinaynaa walaalaheen muslimiinta in ay u fiirsadaan qaybta labaad oo soonkaada kaa burin karta oo la yidhahdo magaciisa almacnawi kaasoo weliba aada iyo aada u yaryihiin dadka wacdiya iyo dadka baraarujiya inay ka hadlaan oo dadka xasuusiyaan weliba waxaa aada iyo aada u yar sidoo kale dadka muslimiinta badankood inay ku baraarugsan yihiin arrintaas labaad taasoo la dhaho waxyaalaha soonka kaa burin kara oo magaceeda aan u bixinay macnawiga arrintan weeyaan arrinta aan raba inaan ku baraarujiyo walaalahay fadhiya oo barakaysan biidni illaahi tacaala hadalkaanoo u noqon doona insha allahu tacaala sabab inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u dhowaadaan bishaanayta mubaarakada oo soo socota
kaasoo weliba ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanayno inuu kulligeen noo fududeeyo inaan ka soo baxno xaqigiisa bishaanayta barakaysan annagoo noqonayno kuwa ka joogsanaynaa wax walba oo soonkeenna naga burin kara qaybta koobaad oo ah waxyaalaha soonka buriya oo maadiga ah iyo qaybta labaad oo ah macnawiga insha allahu tacaala kelimadaas waxaan ku xijin doonaa haddaba hadallo kale hadalladan aan dhihi doono insha allahu tacaala waxaan rabaa si fiican inaad u dhegaysataan ood ugu fiirsataan kuwaasoo iyaga naftirkood dadka muslimiinta badankood kuwo ay ka mogan yihiin ayna ku dhaqmin dadka caamada muslimiinta oo dhan bal dadka khaasada qaarkood oo cilmiga ilaahay siiyey xadiid waxaa jira dadka ku baraarugsan iyo aad u yaryihiin iyagoo xadiidkaas intay ka tagaan mid kale aad iyo aad u ilaalinaya awgeed weliba waxaa u fududaan weyday muslimiinta badankood inay isku keenaan labada xadiid aan sheegi doono isku keenidaasoon ka wado isku keenid lagu camal falaayo labada xadiid xadiiskaasna waxaa weeyaan ummaddeeda kheer kama zuulayso inta ay dadejinayaan afurka ay suxuurtana dib u dhigayaan halkan haddaba waxaan haysanaa laba arrimood oo dadka badankood ay ka mogan yihiin arrintaasoo ah in la dadejiyo afurka in la cuno iyo in suxuurta dib loo dhigo ama arrinta koobaad oo ah in la dadejiyo afurka dad badan waxay u malaynayaan inuu khilaafahayo xadiidka kale oo ah ummaddeeda kheer kama zuulayso inta ay dadejinayso salaat almaghrib idan halkan waxaana hor yaala laba arrin labadabana waa amar labadan amar oo ah laba waxyaabood in la dadejiyo marka waxaa u muuqata dadka badankood labada arrimood lama dadejin karo in marka labadan la dadejiyo in afurkale la dadejiyo salaadana la dadejiyo oo si dhaqso ah loo tukado waqtigeeda saxda ah la tukado waa arrin aad u fudud weeyaan nabigeena nafsirkiis ayaa noo muujiyey oo noo bayaaniyey labadan arrimood sidii loo samayn lahaa muxuu samayn jiray nabigeena sal slam wuxuu ku afuri jiray 3 xabo oo timir ah markaasaa wuxuu u istaagi jiray salaatilmaghrib inuu tukado markaas ka bacdi wuu soo noqon jiray salaada ka bacdi cashadiisa u fariisan jiray hadduu iska dareemo sala allahu calayhi wasalam inuu cuno cashada annaka maanta marka waxaan ku dhacnay laba khilaaf arrinta koobaad oo ah aadaanka dib aan u dhignaa waqtigiisa saxda ah ayaan ka dib dhignaa markaas ta'khiirkaas oo dibka loo dhigay ka bacdi waxaa imaanaya wax kaloo isagana dib loo dhigi doono inaan u fariisano cuntada markii laga reebo dad yar khaasatan kuwa ku dadaalaya salaata inay ku tukadaan guriga ilaahay laakiin dadka caamadooda intooda kale waxa weeyaan way daahayaan waxay sugahayaan aadaanka inuu dhaco koow arrinta labaad oo ahna aadaanka markuu dhacane way iska fariisanayaan waxaad malaysaa inayba qado u fadhiyaan oo qadaynayaan ama inayba cashaynayaan casho culus ay dhammaystirayaan cashadani iyagana kuma jiraan labadooda laakiin waxay ku jiraan afur aadaanka badankiis wadamada muslimiinta maca alasaf ayaan dhahayaa maaha keliya dhulkan la yidhaahdo urdun waxaanan ku ogaada arrintaasayto inaan dabagalay wadamo badan oo muslina inaan dabagalay qoraxdooda iyo salaada xilliga ee adimaan waxaa la aadaamayaa maqribka waqtigii markuu soo galay ka bacdi sababta keenaysa waxa weeyaan waxaan ka tagnay ku dhaqanka axkaamta sharciga iyo fulinteeda waxaan weliba maaragtay iska fiirinaynaa iska ilaalinaynaa xisaabta la yidhaahdo xisaabta falakiga ama kalandarka waxaa maanta maaragtay u tiirinay arrimaheennoo dhan waxay dadka ugu yeeraan kalandarka kalandaradanaito waxa weeyaan waa xisaab falaki ah xisaabtaasoo weliba fiirinaysa dhul fidsan oo toosan dhulalkana waa kala duwan yihiin khaasatan dhulka hadda annaka aan joogno oo kale dadna waxay joogaan meel hoosay degan yihiin tog oo kale dadna waxay saaran yihiin buur yar dadna waxay saaran yihiin buur dheer marka ma suuroobi karto in dadkaasoo dhan kalandarkooda uu hal inuu noqdo inay wada noqdaan dad xeebta agteeda degan iyo dad maaragtay dhul fidsan degan iyo dad meel buur ah saaran meel dalcad saaran maya isku mid ma noqon karaan dhul kasta wuxuu leeyahay xukunkiisuu leeyahay waqtigiisuu leeyahay dhul walba qofka marka haddii uu awoodo isagoo dhulkiisa jooga inuu arki karo qoraxdiioo dhacaysa oo degaysa ishiisuu hadda ku arkaa marka taas weyaan xadiidka uu dan leeyahay in la dadejiyo afurka laannu ishiisuu ku arkay qoraxdiioo dhacaysa
waxaan kusoo celinayaa xadiidkii hadda xoogaa ka hor aan sheegaya nabigeena wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam ummaddeeda kama zuulayso kheer inta ay dadejinayso afurka. wuxuu aada iyo aada ugu dadaalay nabigeena sala allahu calayhi wasalam in uu fuliyo sunnadan iyada ah, isagoo ummadda baraya, sidoo kale isagoo fulinaya sala allahu calayhi wasalam. markaan u nimaano siduu wax u bari jiray, waxaa ku sugnaaday xadiidkii uu wariyey imaam albukhaari saxiixiisa uu ku wariyey: إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى الشرق goorta habeenka uu ka yimaado dhinacaas, markaasuu nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu farta ku fiiqay dhinaca bariga. وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى الغرب maalinkiina uu halkaas hita kasii tago, wuxuu nabiga sal slam farta ku fiiqay dhinaca galbeedka. qoraxdiina ay dhacdo, maxaa waaye macnaheeda? waxaa xaqiiqa qofkii soomanaa wuu afuray. macnaheeda waxa weeyaan wuxuu galay xilligii la afuri lahaa ayuu galay. markaas waxaa noo imaanaya xukunkii xooga ka hor aan kasoo shekeynanay uu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu nagu booriyey, kaasoo ahaa in la dedejiyo afurka. nabiga sala allahu calayhi wasalam arrintan wuu fulin jiray xataa hadduu yahay qof safar ah oo gaadiid saaran. sidoo kale waxaa ku sugnaatay saxiix albukhaari, nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu faray saxaabadiisa mid ka mida inuu u diyaariyo afurka. markaasaa wuxuu yidhi: yaa rasuul allah, iftiinkii ayaa horteenna ahoo u jeednaa. yacni wuxuu ka wadaa iftiinkii qoraxda xataa haddii qoraxdii dhacday, laakiin waxaa loo jeedaa iftiinkeedii ayaa loo jeeda dhanka galbeedka. nabiga sala allahu calayhi wasalam ninkaas uma jawaabin, walaakin wuxuu ku ta'kiidiyey inuu ku celiyey afurka diyaari. ninka xadiidka noo warinaya wuxuu yidhi: waxaan u jeednay iftiinka horteenna, yacni waxaan u jeednay uu dhahay iftiinka qoraxda goortaan afurnay. qofkeen haddii uu kori lahaa ratigiisa, qoraxdu haddana arki lahaa. nabigeena sala allahu calayhi wasalam qoraxda markii halka saas uga dhacdayba, nin saxaabada ka mida wuxuu ku dhahay afurka diyaari, maxaa jira? siduu ugu degdego sala allahu calayhi wasalam khayrka. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ummaddayda kheyrka ma zuulayso intay afurka dadejinayso. marka waa inaan ogaano afurka la dadejinayo waa inuu noqdo afur la cunayo dhowr xaboo timir ah. markaasa salaada loo istaagayaa, salaadiina wakhtigeedii saxda aheeda la tukanayaa. markaas kabacdi dadka way fadhiisanayaan, cuntada intii ku filneed ayay ka cunayaan. arrintan weeyaan arrinta aan jeclaystay inaan igu baraarujiyo, waxa weeyaan in la kulmiyo labada arrimood. arrinta koowaad oo ah in la dedejiyo afurka, arrinta labaad oo ahna in la dedejiyo salaada maqribka. labadaasna waxaana amray nabigeena sala allahu calayhi wasalam inaan dedejino. marka afurka waxa weeyaan in dhowr xaboo timir la cuno. haddii dhowr xaboo timir la waayane, waxa weeyaan dhowr kabasho oo biyo ah. markaas kabacdi waxaa loo istaagayaa salaada jamaacada guriga ilaahay gudihiisa. arrinta marka tan xigta aan rabo inaan igu baraarujiyo waxa weeyaan arrinta ku jirta xadiiska qeybtiisa dambe, waxa weeyaan inay dib u dhigaan suxuurta. marka waxa weeyaan arrintan dambe cagsiga arrintii afurka, in dib loo dhigo suxuurta. lianna afurka waxaana la faray inaan dedejino, haddaba suxuurtana waxaana laga rabaa inaan dib u dhigno. marka la fiiriyo xaaladdeena maalmahaane, taas way khilaafsan tahay 100%. liannu dadka qaarkood waxa weeyaan si xaqiiqa waxay suxuurtaan intuuna fajriga soo gelin saacad ka hor. arrintaasito arrin loo baahan yahay in la sameeyo ma aha. arrintaa waxay khilaafsan tahay sunnada qowliga ah nabigeena sala allahu calayhi wasalam laga wariyey, sidoo kale sunnada ficliga ah oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam uu samayn jiray. saxaabada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam suxuurta dib ayay u dhigi jireen ilaa ay ku sigtaan inay maqlaan aadaankeygoo suxuurta ku jira. bal xataa waxaa ka sugnaatay nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiix ah oo noo bayaaninaya diinteenna siday u fudud tahay. xadiidkaasoo noqon kara qawaacidda islaamka oo loo baahan yahay muslimiinta inay ku fahantamaan, khaasatan marka uu xadiidka yahay mid ku saabsan soonka.
khaasatan ilaahay subxaanahu watacaala markuu nagu baraarujinayo oona farahaya soonka aayadahaas wuxuu ku dhammaystiray يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ilaahay wuxuu nila rabaa yusriga ninima damacsana ilaahay subxaanahu watacaala cusriga adeega. waxaa haddaba ka mid a yusriga aayadda ku jira iyo fudeedkana loo fudeydinayo diinta xadiidka nabigeena sala allahu calayhi wasalam goortuu qofkiin uu maqlo aadaankii oo socda saxankana weli gacantiisa uu ku jiro iyuuna saxanka dhigin ilaa xaajadiisa uu ka dhammaystirto. goortuu qofkiin uu maqlo aadaanka maacuunkana weli gacantiisa uu ku jiro maacuunkaasoo u kala bixi kara cabitaan ama cunto, caano, biyo, wuxuu raba ha noqdo waxyaalahoo dadka ay ku suxurtaan. markaasna wuxuu maqlay aadaankii socda iyuuna dhihin markaa haa cuntada waa xaaraan wa hadda maya, cuntada wuxuu noqonaysaa xaaraan goorta la addimo qofkii ka dhargay cuntada oon u baahnayn. marka lama baahno qofka hadduu dhargay inuu cabitaanka wax ku darsado ama cuntadii wax iskaga darsado isagoo xaajadiisa ka dhammaystirtay cuntadii cunayay ama cabitaankii uu cabaayay oo dhan. laakiin inuu maqlo aadaankii isagoona weli xaajadiisii aanan ka dhammaystirin cuntada ama cabitaanka, rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo baneeyey arrintaas. weliba nabigeena sala allahu alay slam si cada ayuuna ugu bayaaniyey isagoo af carabi fasiixa ku hadlaaya oo wuxuu yidhi goortuu qofkiin uu maqlo aadaanka oo socdo maacuunkii weli gacantiisa ku jira yuuna dhigin ilaa uu ka dhammaystirto xaajadiisa maacuunkaas gacanta ugu jira. waxaana laga wadaa aadaanka inta aadaanka labaad oo salaatilfajr ay ku soo gashay waa aadaanka labaad, ma aha aadaanka koobaad, kaasoo weliba loo bixiyey si qalada weliba loogu bixiyey aadaanka imsaaga in laga joogsado cuntada. marka waxaana laga rabaa inaan ogaano aadaankaas koobaad in loo bixiyo aadaanka imsaaga in laga joogsado cuntada asli ma laha, daliil ma leh. aadaanka labaad weeyaan aadaanka la yiraahdo imsaaga. arrintaasna wuxuu ku jira qur-aanka ilaahay subxaana watacaala noogu bayaaniyo wuxuu yidhi subxaanahu watacaala فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. haddaba cuntada waxay noqonaysaa xaaraan in la cuno amba cabitaanka loo dhowaado xilliga salaatilfajr uu soo galo. in labadan arrimood la kala fasliya ma aha in la dhaho maaragtay imsaaga waa rubuc saac ka hor intaana wakhtigii uu soo gelin. in la dhaho ma aha maaragtay waa in la kala sooco labada waqti, salaatilfajrna way soo gashay cuntadiina waa xaaraan. in saas la sameeya ma aha abadan, lianna salaada waxay noqonaysaa waajib kugu noqonaysaa goorta fajriga runta ah uu soo galo. cuntadana qofka waxay ka xaaraantumoobaysaa goorta uu soo galo fajriga saadiqa ama runta ah. maaha in la kala fasliya labada arrimood abadan, in la kala fasliya maaha. saas awgeed waxaa ku soo aroora xadiidka ay ku heshiiyeen imaam albukhaari iyo muslim, xadiidkii cabdullaahi bni cumar bn alkhataab radia allahu tacaala canhuma. nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi لا يغرنكم أذان بلال. ha ku kasoominina aadaanka bilaal. aadaan bilaalna waxaa laga wadaa aadaanka koobaad, leanna bilaal wuxuu addimayaa qofka horta siduu u soo kaco, qofka suxuuranayana inuu suxuurto. marka cuna oo cabba ilaa aad maqashaan aadaanka ibnu ummi maktuum. ibnu ummi maktuumne waxaa la dhihi jiray magaciisa camar. wuxuu ahaa nin indhoolo ah. waa ninkii ay ku soo degtay aayadihii ku jiray suuratu cabasa bilowgeeda goortuu ilaahay dhahay cabasa watawalla an jaa'ahu alacmaa. acmahana waa ibnu ummi maktuum. ibnu ummi maktuum oo magaciisa waa camar, aayadahaasna ay ku soo degeen, wuxuu addimi jiray aadaanka labaad ayuu addimi jiray. aadaankaas dambe oo weliba cuntada xaaraantimeynaya oo weliba kuu bannaynaya inaad tukatid salaatilfajr. siduu ninkaas u addimi jiray indhoolana wuu ahaaye waa su-aal dadka qaarkood si dabiica dhagahooda ugu soo dhici doono dhahaya alla waa sax waaye, siduu addimi jiray indhoolu ahaaye suu ku garan jiray xilliga. wuxuu ahaa saxaabigaasayto camar bnu ummi maktuum radia allaahu tacaala canhu. wuxuu
kori jiray masaajidka korkiisa. marka isaga fajriga uma jeedo, walaakin wuxuu sugi jiray dadka masaajidka hormaraya. marka ay kuwaasayto marka masaajidka hormaraya ay arkaan fajrigii inuu soo baxay oo weliba ku faafay dhanka bariga, waxay ku dhihi jireen subaxiyaa soo galay, subaxiyaa soo galay. markaas ka bacdi wuu addimi jiray. marka idinkan halkan waxaad u jeedaan aadaanka camar ibni ummi maktuum. aadaankiisa wuxuu ahaa goorta uu fajriga soo galo oo weliba dadkii ay arkaan jidka soconayay. wuxuu addimi jiray goorta uu maqlo subaxii waa soo galay, subaxii waa soo galay, wuu addimi jiray. idan arrinta waa arrin ballaaran weeyaan. idan mu'adinka wuxuu la daahi jiray aadaankiisa khaasatan markuu maqlo dadka ku dhahaya subaxiyaa soo galay, subaxiyaa soo galay. markaas ka bacdi haddana nabigeena sala allahu aleyh wasalam wuxuuna yidhi, haddii aad maqashaan aadaanka maacuunkana weli gacanta qofkiin uu ku jiro, yuuna dhigin maacuunka ilaa uu ka guto xaajadiisa. ilaahayna subxaanahu wa tacaala run ayuu sheegay goorta uu ku yidhi aayadaha soonka dhammaadkooda, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. haddaba marka aayadahaas ka bacdi fiqhiga la inkiraayo waxaa ka mid ah oo weliba khilaafsan sunnadan nabigeena sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay. qofka soomahaya goorta uu aadaanka maqlo cuntada afkiisa ku jirta waa inuu soo tufo. arrintanayta waa adadkaansho lagu adadkaanahayo diinta oo la yidhaahdo ghuluw. rabbigeena kariimkana subxaanah wuuna wacdiyey, kitaabkiisa ayuu nagu wacdiyey oo nagu xasuusiyey. sunnada nebigeena sala allahu aleyh wasalamna wuxuu nagu xasuusiyey inaanan ku adadkaanin diinteenna oo ku talax tegin. ilaahay warka kitaabkiisa wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala, yaa ahla alkitaabi laa taghluu fii diinikum. nebigeennane wuxuu nagu yidhi sala allahu calayhi wasalam, waxaad iska jirtaan inaad ku adkaataan diinta, li'anna waxaa halaagay si xaqiiqana u halaagay dadkii naga horreeyey goorta ay ku adkaadeen diintooda. ama wuxuu yidhi nabigeena sal slam, waxa un halaagay dadkii naga horreeyey goorta diintooda ay ku adkaadeen. haddaba hadduu nabigeena sala allahu aleyh wasalam uu noo bayaaniyey mas'aladda qofka sooman inay ugu jirto fudayd, ballaar, ilaa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam goorta uu maqlo aadaanka oo socdo uu maacuunka weli gacantiisa uu ku jiray yuuna dhigin ilaa uu ka guto xaajadiisa. idan oppositekeeda ama kasoo horjeedkeeda waxa weeyaan mushaaqaad ilaahay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam lala gelayo goorta uu yidhaahdo qofkii cuntada afka ugu jirtay aadaanka goorta la maqlo cuntada soo tuf. arrintan sax ma aha, sunnadana kaba mid aha. bal arrintaanayta waxa weeyaan sunnadii khilaafsan tahay, nabigeena sal slamna amrigiisa ayay khilaafsan tahay. oo weliba aan ku bayaaninay xadiidkii xoogaa ka hor oo sariixa ahaa. marka arrintaana aadaa la ii weydiiyey. marka saan la ii weydiinin arrintaas waxaan ii hormariyey xadiidkan wuxuu ku jiraa kutubta ugu caansan oo kutubta ahlusunna, kuwaasoo ay ka mid yihiin sunan abi daawuud oo kale. waa kitaabka saddexaad kutubta 6 caanka ah oo la yaqaano. ka ugu horeeya waxa weeyaan saxiix albukhaari, ka labaadna waxa weeyaan saxiix muslim, kan saddexaadna waxa weeyaan sunan abi daawuud. xadiidkani wuu ku jiraa. sidoo kalena waxaa wariyey abu cabdillaah alxaakim, mustadrakiisa ayuu ku wariyey. sidoo kale waxaa wariyey imaam axmed, imaam asunna, allah ha u naxariisto, kitaabkiisii weynaa oo caanka ahaa oo magaciisa la dhihi jiray musnadul imaami axmed. haddaba marka xadiidkan ma aha xadiid ka mid ah axaadiidta ghariibka ah, maya waa xadiid mashhuur oo caan ah weeyaan, ee weliba ay wariyeen a'immadii sunnada hore. weliba waxay ku wariyeen sanad saxiix ah. halkaana waxaan leeyahay anoo soo gabagabeynayaa kelimadan, leanna waxaa dhici karta mid idinkani ka mid a inuu su-aal qabo ayaa dhici karta, annagoona weliba insha allah ka jawaabi doonaa su-aashiisa.
nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay waxyaalaha uu noo rukhseeyey in lala yimaado siduu u jecel yahay in lala yimaado waxyaalaha nagu farad yeelay. riwaayad kalena waxay leedahay siduu ilaahay uu u necab yahay in lagu dhaco dembiga. waa laba riwaayo weeyaan. midna waa tii hore, ilaahay casa wajalla wuxuu jecel yahay in lala yimaado waxyaalaha uu noo rukhseeyey siduu ilaahay subxaanahu watacaala u jecel yahay in lala yimaado waxyaalaha uuna faray. riwaayadda labaadoo ah ilaahayna subxaanahu watacaala siduu u necab yahay in lala yimaado waxyaalahu naga xaaraantimeeyey. marka qofka mu'minka ah waxa weeyaan uma habboona in uu iskala weynaado inuu adeeco nebigiisa sala allahu calayhi wasalam, khaasatan waxyaaluhu nagu baraarujiyey sala allahu calayhi wasalam uu nagu booriyey. intaas ayaa nagu filan biidni illaahi tacaala. wallahu tacaala aclam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. hadduu qof idinka niga bado marka su-aal qabo ama arrin ay ku adkaato u baahan in la bayaaniyo, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiinayaa inuu towfiiqda na haleeshiiyo. sheekhana ma jiraa laba aadaan sunnada? haa, waa jiraa. xadiidka hadda aan sheegayno ku jiraa. ha ku kalsoominina aadaanka bilaal, leanna aadaanka bilaal waxa weeyaan aadaanka qofka hurda inuu soo kaco, qofka suxuuranayana inuu suxuurto. marka cuna oo suxuurta ilaa aa maqashaan aadaanka ibnu ummi maktuum. isagana ma addimi jirin ilaa uu maqlo dadkoo dhahaya subaxiyaa soo gala, subaxiyaa soo galay. marka laba aadaana jira. ramadaan keliyana kuma sugna arrintan ama maaragta kuma eka, bal waxaa xaqiiqa sanadkoo dhan in la iska rabo aadaankaas, labadaas aadaan. aadaanka koowaadna xikmadiisa aada iyo aada u muuqataa. xadiiska naftirkiisa noo bayaaniyey oo waxa weeyaan qofka hurda inuu soo kaco iyo qofka suxuuranayana inuu suxuurto. ninka hurda wuu soo kacayaa, salaaduu tukanayaa, sunnaduu tukanayaa, fariidaduu isku diyaarinayaa. ninka suxuuranayane wuxuu u suxuuranayaa maalmaha soonka isniinta iyo khamiista, habeenada cadcad oo la dhaho ayaamul biid, ama maalinuu soomi maalinna wuu afuri sida soonka sunnada ugu soo arooray. idan dadka mu'miniinta ah way u baahan yihiin aadaanka koobaad iyo kan labaad sanadka oo dhan u baahan yihiin. waxaana caado noqotay wadamada qaarkood dadka waxa weeyaan inay addimaan un keliya aadaankaas koobaad ramadaan markuu soo galo. arrintaana waxa weeyaan arrin lasoo gaabiyey, lagu ekeysiiyey bisha ramadaan, iyada oo weliba ahayd arrin sanadkao dhan loo baahnaa in la sameeyo. marka haddaba mu'adiniinta dadka adaamaya waxaa waajib ku ah markay addimayaan fajriga labadaas aadaan inay ilaaliyaan. aadaanka koobaad iyo aadaanka labaad waxaa u dhexeeya 10 daqiiqo ilaa rubuc saac. saas ayay ku soo aroortay faa'iidadaas naftirkeed axaadiista qaarkood oo saxiixa ah. idan halkan waxaan haysanaa laba aadaanaan haysanaa. ramadaan keliya kuma ekee sanadko dhan weeyaan. sheekhana su-aasha kale waxa weeyaan xoogaa xiriir waxay la leedahay walaalkan hadda wuxuu sheegayay mas'aladan la dhaho tathwiibka. salaada waxay ka fiican tahay hurdada, salaada waxay ka fiican tahay hurdada. waxay sameeyaan dadka aadaanka labaad ay sameeyaan oo fajriga uu soo galayo. su-aashan waa su-aal fiican weeyaan, su-aal wanaagsan weeyaan. waxaa ku soo arooray sunan annasaa'i iyo saxiix ibnu khusayma iyo keyrkoodaba oo kutubu sunna. nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu baray saxaabadiisa mid ka mida, kaasoo magaciisa la yidhaahdo abi maxduura. wuxuu baray aadaanku barana waa aadaanka aan naqaano maanta oo dadka ay addimaan, laakiin iyadoo lagu daraayo waxyaalo ziyaado ah xagga hore ama xagga dambe. aadaanka sharciga ah wuxuu ku bilaabmaa allahu akbar, wuxuuna ku dhammaadaa laa ilaaha ila allah. laakiin wuxuu ku yidhi goorta aad dintid aadaanka koobaad, marka xaya cala asalaa xaya cala alfaaca dhammaysid waxaad leedahay assalaatu khayru min annowm, salaada waxay ka fiican tahay hurdada. kan weeyaan kii shariicadeenna u bixisay attathwiib. marka kelimadan salaada waxay ka wanaagsan tahay khayru min annowmi waxa weeyaan meesha lagu daraayo waa aadaanka koobaad weeyaan.
ma aha marka aadaanka labaad in lagu daro. marka xadiiskii dhoweed waxaan ogaanay oo soo dhaafnay xooga ka hor sababta loo sharciyeeyay aadaanka koobaad suu u soo kaco qofka hurda, qofka suxuranayana u suxurto. marka haddaba tathwiibkan haddii lagu daro aadaanka labaad faa'iidadiisii way iska tagtay, la'annu dadka aadaanka labaad wayba soo jeedaanba, ma aha dad hurda. marka sunnada haddii la fiiriyo sidana loo soo wariyey iyo caqliga saxda ah sida uu ku jiro, waxa weeyaan in lagu daro salaada ayaa hurdada ka fiican aadaanka koobaad in lagu daro, ma aha in lagu daro aadaanka labaad. qofka haddaba soo nooleeya sunnadaas wuxuu heli doonaa ajrigeeda iyo qof walboo gadaashiis ku camalfala ilaa qiyaamaha, iyagoona dadka gadaal ka imaanaya ujuurtooda waxba laga khasaaraynin. cafwan sheekh, su-aal: haddii mu'adinka hurdo ay la tagto uu soo kici kari waayo xilliga aadaanka koobaad, laakiin uu soo kacay xilligii aadaanka labaad, ma ku dari karaa asalaatu khayru min annowmi aadaanka labaad? maya, kuma dari karo. sababto dadka waxay u malaynayaan aadaankii koobaad inuu ninkaan ta'dimayo u malayn doonaan. runtii in la sharciyeeyo labada aadaan waxaa ku jirta xikmad aad iyo aad u xil dheer. xikmada kale oo ku jirtana waxa weeyaan nabigeena sala allahu calayhi wasalam aadaan kasta qof ayuu u xil saaray oo mas-uulka ah. xikmada ku jirta waxa weeyaan dadka aadaanka maqlaaya waxay garan karaan qofka addimaya, aadaanku addimaya waa noocee, aadaankii koobaad miyaa, kii labaad miyaa, qofka codkiisaa lagu kala garanayaa. waa tamyiiz waa marka haa sax, tamyiiz waaye. arrintaanna waa sunno kale loo baahan yahay in lasoo nooleeyo iyada naftirkeed. laakiin su-aasha adiga ay weydiisa haddeer waxa weeyaan sunnada tathwiibka waa in meesheeda loo daayo aadaanka koobaad. dayib sheekh, maadaama aan hadda ku jirno mas'alada aadaanka aad noo wadid, bal xoogaha su-aalo kale kaa weydiino aadaanka. تفضل. dayib sheekh, aadaankanayta oo maaragtay la waxideynayo masaajidoo dhan hal aadaan laga aadaami doono, oo welibana aadaanadaasayta lagu daraayo waxyaabaha qaarkood gadaal xagga dambe looga daraayo, ama mas'alada in wax dambe xagga dambe wax looga daro waana kuu sheegnay xooga ka hor waxaan ku dhahnay aadaanka nabigeena sala allahu alayhi wasalam wuxuu ahaa الله أكبر الله أكبر inuu aadaanku ku bilaabmo لا إله إلا الله. uu ku dhammaado. kelimad waxaa jirta aan ka helo wadamada carabta qaar isticmaalaan, khaasatan wadanka Syria laga isticmaalaa kelimadaas. waxa weeyaan kelimadaas الزايد أخو الناقص. hadalkaasna waa hadal ay dadka caamada ay ku hadlaan. waxay dhahaan waxa aadka ah ama waxa ziyaadada ah wuxuu la walaal yahay waxa naaqiska ah, shortka yacni. arrintaasna waa sax weeyaan. hadalkaas isaga ah sunnada laga qaatay. wuxuu dhahay nabigeena sala allahu calayhi wasalam qofkii diinteenaan wax ku dara waa raddi, lagama aqbalayo. axaadiidna waa garanaysaan, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waana badan yihiin oo macnahaas ka hadlaya. sidoo kale sidaynu ugu bannaaneen qofka muslimka inuu tukado maqribka oo kale 4 ragcadood, sidoo kale uma bannaana qofka muslimka inuu maqribka tukado 2 ragca. maxaa jira arrintaas? maxaa saas u dhahnay? li'annu zaa'idka wuxuu la walaal yahay naaqiska. sidoo kale in diintan wax lagu daro ma bannaana, sidoo kale diintan in wax laga naaquso ma bannaana. cagsigana waa sax weeyaan. weliba arrinta la yaab kale waxa weeyaan dadka badankood ay ka mugan yihiin in ay inkiraan cibaadada in wax laga yareeyo. way isku raacsan yihiin maqribka haddii 2 ragca la tukado kulli waa la isku raacsan yahay, qalad waa waxba kama jiraan, oo laga dhigo salaatul-fajr oo kale. laakiin dad badan wax walwala kuma haya ama dhib kuma hayso inay arkaan diinta wax lagu daraahiyo. nabigeena sala allahu alayhi wasalam diintiisa in wax lagu daro dhib badan kuma hayso, sida hadda arrinta aan ka hadlayno oo kale. aadaankuu baray nabigeena sala allahu calayhi wasalam abu maxduura radia allahu tacaala canhu. sidoo kale aadaankuu nabigeena sala allahu alayhi wasalam uu baray bilaal radia allahu tacaala canh, iyo dadka mu'adiniinta xilli kasta imaan jiray, xilli kasta jirayna, sanjiri kastana jirayna, aadaanka waxay ku bilaabi jireen allahu akbar, waxayna ku gebagabayn jireen laa ilaaha ila allah. maxaa haddaba noo baneeyey marka ina aadaanka markuu dhammaado wax ku dardarno, ama in xagga dambe looga daro ama in xagga hore looga daro? waa dad isticmaalaya caqligooda weeyaan, laakiin waxaan rajaynayay in caqligooda ay isticmaalaan caqligaas uu ku buuxo cilmigaas oo ku dhisan shariicadeena islaamka saxda ah. mid iyaga ka mid ah wuxuu ku leeyahay goorta lagu yidhaahdo walaalow sunnada waxa weeyaan aadaanka markuu dhammaado inaad ku dhammaysid laa ilaaha ila allah, waxbana ha ku darin. sidoo kale wuxuu ku leeyahay maxaa ka jaban ninka hadda hadalkaasoo kale dhahaya? maxaa ka jaban? kama fakerin
macaani badan oo ku jira aayado badan iyo axaadiid badan oo saxiix ah. sida tusaale aayadda ilaahay kariimadda uu ku yidhaahday اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. waan ii taam yeelay waa dhammaatay. waxa markuu dhammaystirmo wax soo haray ma jira, wax soo haray ma jiro. siduu u dhihi karaa marka ninka muslimka ah maxaa ka jaban? walaalow, hadda aniga aadaanka aan ku daro salliga nabigeena sallallahu calayhi wasallam maxaa ka jaban? waxaa ku jira walaalow ugu yaraan shuu fiiha, maxaa ku jira aad leedahay? ugu yaraan waxaa ku jira nabigeena waxaad u nisbeynaysaa inuu khiyaanay shariicada. haddaa marka arrintaasi ta aamintid, diinta islaamka waad ka baxday oo nabigeena aad ku tuhunto wuu khiyaanay diinta, waxbuu ka naaqusiyey. laannu nabigeena sallallahu calayhi wasallam aayadaha qur'aanka waa lagu soo dejiyey, isagaana lala hadlaayey. nabigeena sallallahu calayhi wasallamne sidii loo amray ayuu u fuliyey aayadaha oo u gudbiyey. khaasatan aayaddan ilaahay caza wajal wuxuu ku dhahay nabigeena sallallahu calayhi wasallam يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. maxaana sidoo kale ka wanaagsan xadiidkii sayida caaisha radiallahu tacaala canha. insha allah wax dhiba kuma jiro inaan sheego xadiidkaas si dhammaystiranna u sheego maadaama ay fawaa'id ku jirto. inkastoo dadka qaarkood ay aaminsan yihiin waxyaalaha qaarkood xadiidkanayta uu ka digi doono. waxaa ku soo arooray saxiix albukhaari, sidoo kale saxiixu muslim, sanad saxiixa ku soo arooray. waxaa laga wariyey nin la yidhaahdo masruuq, waa rajul faadil ah waaye, culamaau taabiciin weeyaan oo waaweyn, nin wanaagsan uu ahaa, masruuqaa la dhahaa. wuxuu u yimid ninkan sayida caaisha radia allahu tacaala canha ayuu u yimid. wuxuu ku dhahay yaa umma almu'miniin, nabigeena sala allahu calayhi wasalam rabbigiisa miyuu arkay? waxay ku tiri xaaddaa istaagtay ee dhahday hadalkaada hadda aad tiri yaa umma almu'miniin, ii naxariisan haygu degdegin. ilaahay subxaanahu wa tacaala soo kitaabkiisu muunu ku dhihin ولقد رآه نزلة أخرى. waxay tiri aniga weeyaan dadka ugu yaqaana arrintaas hayto. waxaan ka maqlay nabigeena sala allahu calayhi wasalam oo dhahaya waxaan arkay jibriil siduu ilaahay u abuuray ayaanu arkay. 2 jeereen ahayd, wuxuuna lahaa 600 oo baal. waxay qariyeen geeska gees cirka. haddaba marka sayida caaisha waxay u sharaxaysaa masruuq aayaddan uu u sheegay ayay u fasiraysaa, isagoo u malaynaya aayaddan inay ka hadlayso nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu arkay rabbigiisa subxaanahu wa tacaala. maya, waxay leedahay anigaan ugu aqaano aayaddan macnaheeda. aayaddan naftirkeeda nabigeena ka wareyso. waxaan ku dhahay wuxuu igu yidhaahda sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay jibriil 2 jeer siduu ilaahay u abuuray ayaanu arkay. wuxuuna lahaa 600 oo baal. waxay qariyeen cirka geeska gees. markaas way sii waday sheekada sayida caaisha radiallahu tacaala canha. waxay tidhi 3 arrimood qofka aragtaan isagoo niiga sheekeynaya ilaahay caza wajalla been weyn ayuu ka sheegay. qofkii nigu dhahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama rabbigiisa arkay, ilaahay been weyn uu ka sheegay. akhriya aayaddan haddaba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa uu ku yidhi وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. haddaba nebiga sala allahu calayhi wasalam goortii la geeyey cirka 7 cer laga saramariyey muunan arkin rabbigiisa. leannu ilaahay caza wajalla goortuu ku farad yeelay nebigeena sala allahu calayhi wasalam 5 salaadood oo arrintaasita weliba kala hadlay, wuxuu uun ilaahay caza wajalla nebigeena kala hadlay xijaab gadaashiis. taas waxa waaye macnaha aayaddii kariimadda haddeer aan sheegaynay oo ahayd وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا taasoo ah jibriil calayhi asalaatu wassalaam oo loo soo diro أو من وراء حجاب. ama inuu usoo diro ilaahay rasuul basharka usoo diro. marka caaisha waxay u soo daliishatay marka aayaddan macquul ma aha in qof bani aadama inuu rabbigiisa arko inta noloshan lagu jiro. qofkii haddaba nigu dhahaa maxameda wuxuu arkay rabbigiisa, ilaahay been weynuu ka sheegay. markaasi waxay akhrisay aayaddan
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. sidoo kale qofkii nigu dhahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam cilmulgeyb ku yaqaanay ilaahay casa wajalla been weynuu ka sheegay. markaas dabadeed waxay akhrisay aayaddan قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. markaas dabadeed waxay tiri tan way arrinta aan u soo daliishanayo hadalkayga. qofkii haddaba niigu dhahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu qariyey wax oo ilaahay casa wajalla uu faray inuu dadka gaarsiiyo, arrintaanayta si fiican u dhegeysta. waa kana shaahidkayga, waa kana daliilkayga, waa kana qofkii niigu sheekeeya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu qariyey wax la faray inuu dadka gaarsiiyo, wuxuu ilaahay casa wajalla ku been abuurtay been aad iyo aad u weyn. markaasaa waxay akhrisay aayaddan oo hadda soo socota. ilaahay wuxuu yidhi يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. markaas dabadeed waxay tiri radia allahu tacaala canha, hadduu moxamed sala allahu calayhi wasalam uu qarin lahaa wax oo ilaahay uu faray inuu bayaaniyo, wuxuu qarin lahaa sala allahu calayhi wasalam وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعم الله عليه ونعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. hadduu nabigeena sala allahu calayhi wasalam wax qarin lahaa, wuxuu qarin lahaa canaantaanu ilaahay casa wajalla uu canaantay. walaakiin isagoo sala allahu calayhi wasalam fulinahaya aayaddii hadda aan ka soo sheekeennay يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. haddaba nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuuna soo gaarsiiyey islaamka kulligiis waxbanana kama tegin, xataa hal xarfi kama tegin sala allahu calayhi wasalam. suuna u dhaheen beri qof xarfi hebel u ka tegay. mu'adiniintana xilligiisa noolaane sala allahu calayhi wasalam aadaanku nebigeenna baray siduu nebigeenna u faray ayay u addimeen, waxba kumayna darin. haddaba runuu sheegay kii dhahay waxa siyaadada ah wuxuu la walaal yahay waxa naaqiska ah. haddaba ma bannaana diintan in wax lagu daro abadan. marka diintanayta waa diin dhammaystiran, waa diin saxsan waaye. maxaana ka wanaagsan hadalkii cabdullaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma goorta uu fasiray xadiidkii caanka ahaa uu yidhi bidco kasta waa baadi weeyaan. xadiidka waa sidaas, baadi kastana naaray u socotaa. marka cabdullaahi bni cumar xadiiskaas wuxuu ku daray, waxaanu dhihi karnaa ku daridda uu ku daraayo waa tafsiil. bidco kasta waa baadi, xataa dadka haddee u arkaan inay wanaagsan tahay. arrintaasna waxay ku tusinaysaa waaqica maanta aan ku jirno xaalkiisa siduu yahay. saa xooga ka hor nii dhahay ninaa waxaad ku leedahay war waxaan ha sameynin, ha ku darin, maxaa ka micno ah uu ku leeyahay. seena wax ugu jirin walaalow? waa ku jiraan wax walaalow, seena wax ugu jirin. waxaa ku jira inaad nebigeena sala allahu calayhi wasalam aada leedahay waxbuu ka tegey. kuguma filna miyaa intaas? taasna waa ugu filantaha qofki inuu baadi ku sugan yahay. ilaahay waxaa weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu nagu nooleeyo sunnada, oo weliba kulligeen uu maaragtay nafta naga qabto annagoo sunnada ku taagan. sheekh, dad badan oo muslimiinta ka mid a waxay afuraan aadaankoona wakhtigiisa soo gelin, qaarkoodna waxay afuraan goorta la addimo. labadan xukunkooda sheekh muxuu kala noqonayaa? waxaa muuqato adiga inaadan nala joogin maanta u malaynayaa. maana nala joogin miya? sheekh, adi waxaad nooga sheekeynaysaa aadaanka suxuurta, may aadaanka maqribkana waan ka sheekeeyey. sidoo kale waxaan ka hadalnay degdega lagu degdegayo iftaarka, sidee waa noociisa, iyo weliba salaada in loo degdego sidee noqonaysa iyadana waan ka hadalnay. sidoo kale waxaanu sheegnay xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ummaddeeda khayrka ma zuulayso inta ay dedejinayso afurka iyo inta ay dedejinayso salaada. sidoo kale waxaanu sheegnay nebigeena sala allahu calayhi wasalam goortuu safarka ahaa inuu nin saxaabada ka mida uu ku yidhaahday afurkeenna noo soo diyaari. markaasaa wuxuu ku dhahay rasuulka allow, iftiinkii waa kaasa waa u jeedaane. wuxuu ku dhahay nebiga sal slam soo diyaari. saxaabigaas wuxuu yidhi mid annaka naga mid a hadduu ratiga kori lahaa qoraxdii haddana arki lahaa. marka afurka wuxuu ahaan jiray goortii qoraxda saas u dhacdaba. sidoo kale waxaan sheegay xadiid, waxaana laga rabaa xadiidkaas inaan u xifdino sidaan u xifdinayno suuratulfaatixa. xadiidkaas oo ah
kuwa nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu yiri goortuu mugdiga xaggaas ka soo baxo ama habeenka maalinkiina halkaas uu ka qulqulo ka tago qorraxdiina ay degto waxaa xaqiiqa qofka sooman uu afuray marka waa in la dedejiyo waaye afurka isla markiiba waaye uma baahna in la suga marka sheekhaygii haddaa la fadhisid group muslimiinta kamid ah kulligoodna waxay diideen inay afuraan adiga keliga ayaa marka waxaa leedahay miya waa afura aniga kana suu ku garan karaa mugdigii inuu soo galay qorraxdiina xagga ka dhacday allah ku barakeeyo xoogaa ka hor waxaanu sheegnay xadiidkii qofkii islaamka sameeya sunno wanaagsan sameeya ninka garanaya wakhtigii afurka inuu soo galay garanaya oo weliba garanaya sunnada inay tahay maaragtay in la dedejiyo afurka hadduu marka koobkii qaaday biyaha oo cabo xabaddii timirta qaada uu cuno uu dadkanayta hortooda uu saa sameeyo ma noqonaya ninkan nin sunno wanaagsan sameeyey mise wuxuu sameeyey sunno xun uu sameeyo oo sayi-a oo dembi ah maya sunno wanaagsan uu sameeyey baaraka allaahu fiik hadda iyagana sidoo kale waxay dhihi karaan annakaba sunnadeenna waa sunno wanaagsan maya hadda waxay ku leeyihin maaragtay aadaanka markii la addimo ayaan afuraynaa annaka waxay leeyihin annakana sunnadeenna waa sunno wanaagsan aadaanka sugaynaa arrintan waa arrin kale waaye baaraka allaahu fiik u baahan in la baaro naftirkeed aadaankan iyagii hadda ay sugayaan hadduu aadaanka ku taagan yahay naftirkiis wakhtiga saxda qoracda ay dhacayso uma bannaano qof inuu afur cuno before aadaanka laakiin hadda hadalka anaka ka hadlayna waxa weeyaan aadaankeenna maanta wuxuu addimahayaa qofka addimahaya qorraxdii oo dhacda 10 daqiiqana ka soo wareegtay idan arrintanayta marka sunno ma ahan qofka sugaya aadaan 10 daqiiqa bacdi dhacaya qorraxdiina 10 daqiiqo ka hor dhacday idan qofkaanayta sunnadii ayuu khilaafay baaraka allaahu fiik sheekhna sheekh fajri saadiqa waxay sheekh fajri saadiqa marka aniga shaqada u socdo maaragtay fajriga saxda ah waxa weeyaan weli ma soo bixin aadaankiya socda labaad laakiin banaanka waa mugdi weli wax fajri soo baxayna ma arki marka ma cuni karaa cunto nacam sax waaye nacam sunnada waa saas weeyaan cuntadaada wado ilaa fajri saadiqa aragtid allah khayra ku siiyo laakiin waa inaa fajriga ilaalina waaye fajriga waa inaa garanayna siduu egyahay aniga waan daawanaya waa ujeedaa waddadan daawanaya waan ujeedaa fajriga ani haddoo shaqada u socda waan fiiriyaa sheekh weli ma soo gelin fajriga allahu akbar sheekh ka waran qof diinta ilaahay caynaya maaragtay isagoo ramadaan la joogo farqi u dhexeeya ma lowdha ama ramadaan ha lagu jiro ama yaa lagu jirin ninka diinta caynaya ama waa gaal diintu ka baxay ama waa faasiq labadoodana waa kala daran yihiin waa maqashaa u malaynaya xabiibkaygow farqi ma jiro ramadaan iyo keyr ramadaanba kan diinta caynaya ama nebigeenna kariimka caynaya ama rabbulcaalamiinka naftirkiisa caynaya laba arrimood midkooda u dhexeeya ama waa gaal diinta ka ridoobay xaaskiisana waxaa waajib ku ah inay ka fogaato ka tagto ama waa faasiq faajir ah labadoodana ma kala yaraystaan wakhtigii ma soo galay sheekh wakhtigii wuu soo galay waa garateen sooma wakhtigii wuu soo galo waa hubtaan sheekh wuu soo gala wakhtigii fadal sheekh haye bis أيها الإخوة والأخوات انتينا كل مينا بإذن الله تعالى ترجموين كلا صدانا كلا قيمة بدن وحيدين كياتينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن حنبل الإسلامية.